Today is a happy day because the president was in the beach. I'm very happy because I saw him. kaliya ma ahayn halkan inuu madaxweynuhu u yimid inuu arko sida dadku ay ugu soo nasina tagaan xeebtan Lido laakiin waxa ku jirta inuu dhageysto aragtida dad badan oo aan fursad u helin inay madaxweynaha mar uun arkaan ama ay la kulmaan qaarkood waxa ay la galiyeen sawirro iyagu ku faraxsan dhalinyarada ku ciyaara kubadda xeebtan Lido laftirkoodu waxa ay heleen waqti uu madaxweynuhu la ciyaaro dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu la shaahay dad u badan dhalinyaro waa kuwan qaarkood oo nala hadlay maanta farxad weyn ayay tahay inaan madaxweynahayga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo aan maanta shaahigan uu koob ku cabo anna koobka ku xiga aan ku cabo run ahaantii ma ogeyn maanta inuu imaanayo meeshan ama u soo booqanayo aad aan ugu faraxsanahay maanta inuu imaado sidoo kale wuxuu maanta u sameeyay bulshada mid u gacan qaaday anigana markii ugu horeysay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka aan salaamay noqotay galabta aniga fadhiyo xeebta Lido waxa farxadii ah inaan kula kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wallahi waxa ay tahay dareen aan cabiri karin inaan maanta madaxweynaha kula qaatay waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kala hadlay dadkii uu kala kulmay xeebtan Lido in Soomaalidu tahay dad mida oo aan kala go'i karin isagoo siyaasiyiintana kula dardaarmay inay la yimaadaan tanaasul badan si midnimada dalkan loo ilaasho waxana uu tusaale u soo qaatay go'aankii uu qaatay xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa ee uu ka tanaasulay xilkaas xaqiiqda Soomaaliya meel joogtada waqtiga dalkaana ma kala go'ay caalamku ma raba inay kala go'o Soomaaliya kala go'o dadka rasmiga marka la weydiiyo ma raba inay kala go'o marka waxaan leeyahay siyaasiyiin oo anigu aan Soomaaliya inaan bilowno wada hadal oo ka shaqeeyno sidii dadka isku dhaweyn lahaa wada hadal loo fuliyo si kaas loo helo anigu diyaar waxaan u ahay inaan bilaabo wada hadal dhab sababtan wax alla wax ku qadi karaan inta haday tahay inaan aan fikir ku waayayo waxa iga muhiimsan midnimada Soomaaliya marka waxaan rabaa siyaasiyiinta inay ka tanaasuli karaan jagada hayaan hada ariga barnaamij rana waa tanaazul hadana waa ikra kale marka ka baxay meesha dad baa waxay lahayn waxa uga baxaysaa meesha ku dhimo waa dhaqan kale yaqaan moogta waxay ahayd galab ka mid ah galbaha madaxweynuhu la kulmo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan galbaha uu muuqdo goobaha ay ku caawiyaan oo ay ku nastaan Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada